السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan soo dhawaada mar kale waxaan ahay Khadar maanta waxaan soo tabin doonaa oo inoo bilaami doonaa buuggeennii ugu horreeyay oo ah jacaylan dhammaad lahayn buugga waxaa qoray Cumar Maxamed Khayr Badansiyo buuggu wuxuu qaybsan yahay 9 qaybood qaybta koowaad dareenka qalbiga qaybta labaad ee igu habboon qaybta saddexaad waxaan ku doortaa qaybta afraad shukaansi waqtiga shukaansiga qaybta shanaad jiheeye qaybta lixaad lamaana isku faraxsan qaybta toddobaad u gaara ragga qaybta sideedaad u gaara dumarka qaybta sagaalaad ugu dambaysana waxaan isku dagaalaynaa markii aan bilaabay akhrinta diganahan quruxda badan ee qoraagu ku magacaabay jacaylan dhammaad lahayn waan ku qancay aadna waan uga helay waxaan aad u sii dhex galay inahaanan la sii raacay sida uu qoraagu u kala shaandheeyey mawjadaha amba hirarka kalgacalka leh ee ay lamaanuhu isugu biyo shubtaan qaybta koowaad waxa ugu wanaagsan uguna qurux badan adduunka lama arki karo lamana taaban karo waxa laga dareemaa qalbiga jacaylku waa dareenka ugu qiimaha iyo quruxda badan ee aadamaha garan karo waa dareen nadiif ah macaan badan nolosheena qiimo u yeela una dareensiiya raaxada nolosha jacaylku waa erey ka kooban qormo ahaan 6 xaraf laakiin xambaarsan macaanka nolosha dhinaca kale haddii aan ka eego jacaylku waa dareen kuu soo jiidaya qof kale qalbigiisa falaadhiisuna wadnaha si lama filaan oo galayso iyadoo aan wax ogolaashaan la weydiisan waa arrin alle ku abuuray noole kasta mar kastana diyaaro waa inuu soo dhoweeyo qalbi kale oo ku habboon sidaa awgeed 2 noole 2 qalbi 2 maskax 2 ujeedo iyo 2 wado waxa kaliya mideeya waa jacaylku maahan keliya inaad dooratid qof qurux badan ama lacag leh laakiin waa qof aad jooggiisa ku dareemayso deganaansho xornimo iyo kalsooni dareemi kara garaaca wadnahaaga kaasoo leh qalbi wanaagsan yahayna qofku daryeeli kara ku farxa aragtidaada iyo dhegeysiga sheekadaada una arka wax kastoo agtaada yaala wax qurux badan waa sida biyaha ceelka oo kale waad ku qoyi kartaa wadna ku dhaawacmi kartaa laakiin biyaha la'aantood ma noolaan kartid wuxuuna iftiimiyaa qalbi kasta sida cadceedda oo kale meesha ugu cidlada badan adduunka waa qalbiga aadamaha markuu jacaylku ka maqan yahay jacaylku maahan aqoon lagu barto jaamacadaha balse waa dareen laga dareemo gudaha qalbiga dadka qaarkiis ayaa ku leh jacaylku waa cadaab ama waxaan waxba ka jirin dadka noocaas ah waa dad keligooda wax jeclaaday ama qalbigooda horey loo soo dhaawacay sidaa darteed meesha dunida ugu barwaaqada badan waa qalbiga dhanka kale meesha ugu cidlada badan adduunka waa qalbiga aadamaha markii uu waayo weelkiisa socod wanaagsan qaybtina labaad